marka ugu horeyso waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigu ah doctor maxamed diibaan maxamed marka labaad mawduuciigu wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano urticaria in qofka uu isku arko cuncun badan maqaarka barar inuu kaga jiro guduud nabar yar oo kuusan ay ka soo baxeen gebi ahaantiisuna isku arkayo inuu isxoqayo marxaladan urticaria inta badan boqolkiiba 20 bulshada qeybaheedu kala duwan mararka qaarkood way la kulmi karaan ama way isku arki karaan waxaana ay ka mid tahay waxyaabaha sababaya allergic reactions in qofka marka uu isticmaalo waxyaabo ama sheeyo ama cunooyinka qeybaheeda kala duwan inuu qofka uu ka qaado cuncun maqaarka gebi ahaanba uu soo bararay nabaro badanna ay ka soo yaaceen inta badan in lagu arkana shafka qoorta wejiga dhabarka qeybaha hoose ilaa ay lugaha marxaladan waxaa loo yaqaanaa urticaria ama hives waxayna u kala bixi kartaa laba qeybood acute ama chronic saaxiibayaal marka labaad inta aanan guda gelin xaaladan urticaria waxaan idinka codsanaa like follow subscribe-ka channelskayga youtube-ka iyo facebook-ga inaan laga baqiilin sidoo kale wixii su-aal iyo talo iyo aragti waxaad iga soo weydiin kartaa adresskayga adigoo aad ka heli kartid youtube description-ka iyo facebook page-ka aad iyo aad idinkaga mahadcelina sidoo kale waxaan idin rajeynaa dhammaantiin khayr wanaag iyo caafimaad marxaladda urticaria ama cuncun maqaarka qofka marka uu ku dhaco si degdeg ah inta ugu badan waxay kasoo muuqataa qeybaha shafka inay kasoo wada yaacaan nabar yaryar soo bararsan sidoo kale qoorta wejiga dhabarka qeybahooda hoose ilaa iyo lugaha xaaladan urticaria qofka wuxuu ku qabaa cuncun badan inuu isku arko iyo in qofka uu isku arkayo in gebi ahaan maqaarkiisa ay soo wada kuusteen soona barareen qaab ahaan ay u ekaadeen guduud midabkooda sidoo kale marxaladan waxay u kala bixi kartaa laba qeybood mid si degdega qofka ugu dhacda iyo mid jirkiisa ay ku daahda taasoo loo yaqaano chronic marka laga hadlayo in acute urticaria in qofka ay ku dhacde ama xaalad allergic ah qofka uu galay si degdega waxay noqon kartaa inta ka yar ilaa ay 6 isbuuc inuu isku arkay qofkaas maqaarkiisa gebi ahaanba inuu cuncunayo nabaro aad u tiro badan oo barar wata inuu ku arkay qaab ahaana midabkoodu wuu egyahay gaduud sidoo kale marka ay noqoto xaaladan chronic waxa ay noqon kartaa in ka badan 6 isbuuc in qofkan ay haysay ilaa ay bilo taasoo qeybaha kala duwan ee caloosha iyo sanbabada lagu arkayo infection badan oo soo noqdo qofkan uu isku arkayo cuncun tiro badan inuu ku qabo jirka qeybihiisa kala duwan urticaria inta ugu badan mararka qaarkood waxaa lagu sheegaa in lagu arka caruurta sidoo kale haweenka qeybahooda kala duwan inay isku arkaan urticaria siyaabooyin kala duwan ayay ku imaan kartaa in qofka uu isticmaalay ama xiriir uu la yeeshay inta ugu badan waxaa lagu sheegaa urticaria marka uu qofka isticmaalo cunooyinka allerjiyada ama xasaasiyadda leh inuu isticmaalo waxaana ka mid ah cunooyinka kala duwan ee looska sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah qeybaha kala duwan ee burka sidoo kale inuu isticmaalo hilibka doorada ama ukunta sidoo kale inuu isticmaalo qeybaha kala duwan ee malaayga dhammaan qeybahaas cunooyinka aan soo sheegnay inta ugu badan qofka markuu xiriir uu la yeesho ama uu isticmaalo waxa ay noqonaysaa in jirkiisa habdifaaca uu ka samaysto antibody una arko in jirka gudaha aysan usoo gudbi karin qeybaha kala duwan ee lymphatic systemka ama wareega dhiiga taasoo uu kaga hortagayo qeybaha maqaarkana lagu soo deynayo histamines badan barar badan oo la kowsada lakabya sare ee maqaarka unugyada hoose ilaa iyo tissue marka laga hadlayo urticaria sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa qofka marka uu qorax badan ay ku dhacdo taasoo habdifaaciisa jirka uu ka hor imaanayo sidoo kale marka qabow uu galo uu jirkiisa ama qabow qeybaha kala duwan uu isticmaalo in qofka uu ka qaadayo cuncun badan iyo in maqaarkiisa uu noqdo gebi ahaan guduud soona bararsan yahay cuncun badanna uu ku qabo sidoo kale marxaladan urticaria ama hives waxaa kaloo lagu arki karaa marka qofka uu isticmaalo qeybaha kala duwan ee daawada ibuprofinka penicillinka aspirinka sidoo kale daawooyinka wadna xanuunka loo isticmaalo loo yaqaano ACE inhibitors dhammaan daawooyinkaas aan kor kusoo xusnay marka uu qofka isticmaalo waxaa dhici karta inuu ka qaado waxa loo yaqaano allergic reaction waxyaabaha kale ee urticaria laga qaadi kara ama qofka cuncun maqaarka isla markii uu dareemo
waxaa ugu horeeya meelaha boorka leh, sidoo kale meelaha temperaturekooda aada u sareeya ama kuleelkooda aada u sareeyo, sidoo kale meelaha dhogorta ay u badan tahay ama maqaarka u badan yahay xoolaha, sidoo kale in ay ku qaniinayaan cayayaanka qeybahooda kala duwan, baranbarada, wariiriga, kaneecada. waxay ka dhigan tahay in qofka habdifaaciisa jirka isla markii inuu ka hor imaanayo haddii uu qabo noocyada hypersensitivity loo yaqaano immunoglobulin E, in habdifaaca jirka uu mar walba u arko in qofka uu marka uu la tacaamulo sheeyaadkan ama walxahan aan soo sheegno in si toosa ugu hor imaanayo uuna soo deynayo wax loo yaqaano histamines. sidoo kale artikaria waxaa kaloo laga qaadi karaa dhaqashada xoolaha sida eeyga, mukulaasha, ariga, dameeraha iyo fardaha. dhammaan qeybahaas aan soo sheegna had iyo jeer waxaa ku badan in qofka uu ka qaado allergic reaction, gaar ahaan nooca loo yaqaano hypersensitivity immunoglobulin E. calaamadaha qofka kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah in qofka uu isku arko jirkiisa gebi ahaanba nabra ay kasoo wada yaaceen, inuu ku arkayo nabrahaas barar inuu la socdo, sidoo kale qeybaha shafka, caloosha, wejiga, qoorta ilaa iyo dhabarka qeybahooda hoose inay kasoo wada yaaceen gebi ahaan. meelahaas aan soo sheegna nabro guduud midabkoodu uu yahay, barar ku jiro, qofkana ay ku hayaan cuncun badan. sidoo kale qofka wuxuu isku arkaa in murqo xanuun badan uu jiro, sidoo kale qofka wuxuu kaloo isku arkaa mararka qaarkooda qufac, qandho badan inay lasoo dirista. dhammaan waxyaabahaas aan soo sheegna iyo qaababkaas waxay ku noqon kartaa in qofka uu qabo waxa loo yaqaano artikaria ama allergic reaction, qeyb ahaana maqaarkiisa ay saameysay. inta badan marka laisku arka marxaladan waxaa haboon in qofka uu la tashto qeybaha kala duwan ee caafimaadka ama goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daawooyinka ku habboonaa. marka ay noqoto baaritaano in la sameeyo qofka waxaa muhiim ah in laga baaro dhiigaga kala duwan ee allergikada, in la ogaado qofkan waxa dhibaya jirkiisa soona gali karo, marka uu isticmaalana uu ka sameynayo habdifaaciisa jirka inuu ka hortago, in qofka laga ilaaliyo. baaritaanadaas marka loo sameeyo wuxuu qofka uu qaadan karaa daawooyinka loo yaqaano antihistamines. haddii qofka xasaasiyad badan uu arkayo in uu cabur badan uu jiro gudaha, inuu isticmaali karo daawooyinka kala duwan ee fexofenadine loo yaqaano, sidoo kale loratadine. haddii maqaarka uu arkayo cuncun badan inuu jiro, inuu qaadan karo daawooyinka corticosteroidska, prednisolone cremiska ama hydrocortisone cremiska, inuu ka yaraado bararka, cuncunka iyo xanuunkana uu daayo. sidoo kale qofka nasiino badan inuu sameeyo, inuusan socod badan sameynin, qorax badan aysan ku dhicin, kuleel badanna uu iska ilaaliyo, iyo cunooyinka dhibaya jirkiisa mar walbana uu arkayo in allergic uu ka qaado inuu ka ilaaliyo. saaxiibayaal, mar labaad saaxiibayaal waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin.